السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان وناكسن رمضان خير قبل الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا شيء نمعه معلم نمعه إنه خبرينا سنة رمضان ولا رمضان وناكسن سنة كيس خير إيه برواقع إلها نوقارسيو إلهي محبرينا إنه يستر أمور عبادتنا وطريقة مستقيم كاهن وضمريو. أحبابي إخواني أخواتي وحنا مشاركين ما إن شاء الله قصة آدي يعجب السيء والله خشوع ميران له إن شاء الله. قصصك waxa ku jira cibro oo cida ku jirta in loo fiirsado la dhageystana aad iyo aad muhiim tahay. waa lagu cibaar qaataa qasaska dadka waa lagu cibaar qaataa waa laga faa'iideystaa. qasada waxa ku bilaabanaysaa inan baa soo qor wuxuu yiri magacaygu Axmed waxaan ku koray waxaan ku dhex koray aabo muhandis ah iyo hooyo maxaan ku raadayay cilmi adab lisans adab bay baratay waa qolada masaari weeyaan. hooyaday laakiin ma shaqayn jirin aabba shaqayn jiray. aabbahay hooyaday muu jeclayn laakiin mushkiladu taamay hayn. mushkiladu waxay ahayd inuu ku dadaali jiray inuu dareenkaasi inuu jeclayn uu qalbigeeda gaarsiiyo markastaba dhaawac gaarsiiyo. waxaan xusuusanahay inaan caruurnimadeydii aan maqli jiray aabbahayo isku qiyaasaya hooyaday iyo isku barbardhigay hooyaday iyo dumarka fanaanaadka kasoo gala telefisyoonada iyo mataqaanayay dacaayadaha oo kale ku jeesjeesanaya yani qaabkay u dhisan tahay iyo timaheeda kale ku jeesjeesanaya. hooyaday ma ooy jirin ummi kaalat yani isaga ma tus jirin ooyso way ooy jirtay isaga laakiin ma kor ooy jirin way ooyso aniga ma oohinaynin yani iyada way ooysaa laakiin inankeeda kama oohinayn way ka qarsanaysaa oohinta. aabahayna wuu ka murugaysan jiray murugu galin jiray ayana markaa murugadu gasho hooyaday anigay dhuuntay gashan jirtay soo dhabisiin jirtay oo hagsiin jirtay. markuu aabo guru ka baxo daa'iman buu yiri way dhabarka intay garaacdo ay ii sheekaysaa waxay oran jirtay buu yiri hooyaday waxay dhimatay anigoo yar marka waxaan la soo koray gabadhii aabahay xaaska aabahay gurigeeda ku soo koray. marka waxay ga sheekayn jirtay qisas fara badan bay iga sheekayn jirtay hooyaday. qasaskaasoo aad u macaansan jiray oo xikmad badan ku jirto oo ka faa'iideysan jiray qasas fara badan. laakiin aabahay qof kulul buu ahaa aad buu kulul aad markasta wuxuu ku caayi jiray hooyaday kaliday tahay iyo in meel ay tagtay oo cararta inaan haysanin buu ku caayi jiray. khaasatan wuxuu ku jiray aabaha iyo xaaskiisu abaa ku furi maayaan saa darteed meel aad u carartid ma haysatid ayna way ooy jirto may jawaab jirin. aabahay sigaarku aad u cabi jiray suxun buu cabi jiray sigaarka. waxay oran jirtay hooyadii waxay inagu oran jirtay sigaarku wuu xun yahay waana muxaram caafimaadkana uu daran yahay lacagtaada ku bixinin wax caafimaadkaaga waxyeela. waxaana oran jirtay u ducee aabaha inuu ilaahay ka caafiyo oo waxaan iska daayo. aabahay muu tukan jirin laakiin hooyaday way tukan jirtay. waxaana oran jirtay aabaha u ducee. waxay oran jirtay hooyaday ilaahay waa qafuur raxiim wuu naxariis badan yahay qofkii khaldamana uu ilaahay u aqbalo toobadiisa ilaahay waan jeclaaday buu yidhi. hooyaday buu yiri waxay jecel markasta inay dhuuntay gashato oo ii dhab siiso. waxay oran jirtay adu waxa tahay kii asraarteeda qarinayay kan ku qarsanay sirteeda waxa tahay saaxiibkii nolosheeda cumrigeega tahay. hooyaday waxaan ku arki jiray indhaheeda muraayada tiyo dhunkanaysa habisiinaysa indhaheedu aad mudid raaxo inay ku jirto inaanu garabkeedii hay adduunka ma taqaanaayay aan cid ku tirsanayso aan ahay. hooyaday ayeedaydii aabba dhashay marar badan bay ku qarin jirtay hooyaday dil yani ina kan yar dil edab ay yeeshay markay wax baraso dil. hooyaday laakiin way aamus jirtay inta aniga iga cudur daartoon jirtay macalish waa ayay hadalka iska ilow yani may jeclin disho. hooyaday waxaan ku tii hooyo maxaad ii dil weyday baan idhi buu yidhi. waxay titiyo indhaheedu ilan ku taalo miyaan ku dilaa ma waxaan dila qofka qurahee ee ii ducayn doona markaan dhinto ee ilaahay sababtiisa darajaadkay kor ku qaadi doono. maan fahmayn waxay ujeedo laakiin waxaan ku farxi jiray dareenka xooga badan ee quwadda badan ee aniga hooyaday naga dhexeeya sida mataqaana cilaaqad sixri oo naga dhexaysa. waxay rabban jirtay aakhira ii rabban jirtay si waxay aakhira ii rabbanay kore waxay ga sheekan jirtay aakhiro. waxaan oran jiray hooyo saaxiibka hebel ma tukado hadduu noloshiisa kuna tixsan yahay. waxay oran jirtay hooyo qofka adduunka doonaya wax ka doonaya waa la siiyay wixii adduunka bay tiri adduunka hooyo Axmedow cid kasta iska leh laakiin aakhiro ya waxaa la dadkii ala ka cabsanaya. maalin ay jumco tahay maalin kasta jumcana waxay xusun jirtay in akhriso suuratul kahf iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam salligiisi. aabahay muu tukan jirin hooyaday saada jumcantay ka xaysay masaajidka goor sugto min marka cumriga 7 jir ahaa
dhaxan iyo kulayl iyo samar iyo shita maxaa la jilaal iyo xagaagba kulaylba seef iyo shitaba waxay oran jirtay anagoo dariiqa soo soconna saada waxaan kasoo soconna اوعى تنساني أما أموت وأنت راجع من الصلاة تدعي لي عشان الملائكة تقول أحمد دعالك اللوبن ما كان انتو إن لو صاد كصوص إلى دي دعايسي سي ملائكتي يقول تراهضو أحمد كوسو دعاي ساكوش هو يا ملائكته قسيت وأوني لها أوميو نور لقى السماي وحنقول لكن هم ماكس مي توغان أنا ما بأرك كريم وحن أكل سنة أوروميستا waxay ugu tiri hadda meed rumaysan sababta oksijiinka ma aragtaa ma xad u baahan tahay rumaysatid in oksijiin jiro ya qofka mu'minka axmedow qeybka rumeeya kaas iimaankeeda aad buu qawiya aad buu cuslaa aabahay cilaaqado fara badan buu lahaa markastana hooyadu uu dareensiin jiray waxaan jiray waan kaa tagaya laakiin hooyadii meel hadii waxba oran jirin maalin waxaan maqlay kiyo kule waan guursanaya kaasay ku tiri waxa doonta samee wixii ku cajibiyo ficlan waxay tahay hooyadii insaan cajiib ah haduu yiri ma baan arkin adiga uu guursaday ma baan arkin hooyaday shaqadeedii maalin bay ugu tagtay oo lacag bay doonatay soo weydiisatay shaqadu ka soo eriyay marka soo eriyay meesha shaqadii hooyaday waxay bilowday in cunto karkariso oo maxay sameeysaa macmacaanaya keegag iyo maxaashi waxbay ka karisaa cunto si dadka ugu iibiso waan ooy wax hooyo waxa sameeyay hooyo waxaas waxay ku tiri atiyo adkaysatay go'aankeeda xalaashu wax ceeb kuma jirto xalaale ceeb kuma jirto bay tiri maalin qurayguma oranin ada dartaaban u tacbaya ada dartaaban dadka wax ugu karinaya dadku bila shak ugu sameyn jirtay mashruuceedu wuna jaxay dad badan baa bartay ma sha Allah waxa ka tacabkeedii tii farxsan markastaba aad mubtasim ah aabahay gabadhu uu furay kaasoo nagu soo noqday guriga uu nagu fadeexaday aska dadkii hooyadii customer-ka oo ahabu ayuu ku diray hooyadii way ooyday dadkii bay raali ahaada bil buu nala joogay haddana uu guursaday waa qof noloshiisa aanan matqanay laga murgoonaynin مؤسف أنا وش سلاعي المرقة يعني خلاص وين أبيه كقصته أباه حن كدر بده هو يدي ما كان كل شيء سكندرية هويو أباه ما سكفرتي واحد تري أنت قلبي يقرأ على تري هويو سكرافض وحاسي وقحما إنك قليل ملحون إنك تشوفي وانش على إن كنا ولاتي لبا أبو استجعل لبا والد مستقرين لحدوده وحقول تري دم بقاقي ما وان ويحن كل بي هو دم بقاقي ما هذيك لكن waxay ku tiri sabr weyn sugu doona balsan bay sugana bilow rabbi soo hadeeyay aad baan ugu dadaalay salaada iyo cibaadada hooyadu way amaani jirtay waxay qoon jirtay ay loobin khasaarin bay tiri nolosha awlaadaada marka mustaqbal awlaad yeelatid khasaarin laana waladkaagu awlaadaada awaayin awlaadaadu ayaga raas maalkaagii shaqadaadii socotay waa ayaga ma fahmi waxay uga jeedaa taasi كيف يعني سمحوا وجهي ده عمل مستمر waxaan ogaabay waxaan gartay markaan galay buu yiri secondary mar aan joogay ba maalin sigaar baan la cabay inama sawirkayga isbedelay way dareentay kaasaan u tagay saamax baan ku hooyo maalin buu saad inuu kama tagin maalin saad waxay gool jirtay hooyo salaadu waa ruuxi qofka mu'minka ahaa hooyaday buu yiri waxa uu soo kordhay dhaqaale fiican bay yeeratay weyn ii sheegtay wax ka soo haysay uruso ilaahay aabahay saamaxay dhowr jeer buu soo hujuumay hooyadii lacag badan ka qaato ku hadiday si yiri maalin anagoo secondary ku jabuu yiri ayuu maxaan ku lahaday waxay ku tiri hooyo aabaha waliga aqoon una ducee si kastoo dhibaatada badato u ducee xaliga adiga ilaahay ka dhaxeeyana waa salaada aad ka tagin hadalkeeda hooyadii maan iloobin markaan secondary-gaan gaaray darajaad fiican baan keenay marnaba hooyadii maan bari jabinin waxaan arkay farxadii indhaheeda kasoo baxday way sujuuday ilaahay bay u sujuuday way sadaqadaysatay waxay samaysay 3 keeg oo dabaqaad isku xigta cid aan la farxno de xafladii nacamtii inaan kama kuna jaxay cid aan la xafladaysan ma jirto waxay la talisay inaan dhakhtarka kuliyada tib inaan galo way raacday way abaaki kuliyadan u raacay maalintii abaaka sii gaadhay kuliyadii baan galay may arkin buu inaan ugu sii daawanay hooyadii sii eegaytiyo faraxsan isheeda inaa ku soo ilaa inta meeshka qaatiyo faraxsan ee akhriysa tib bilfam wal asnaan waxaan ku dhaartay ilaahay baan dhaartay inaan hooyadii marnaba bari jabinin ballanta ilaahay nagu soo baxo inaan ballanta wax ka soo ximaanin waxa soo noqday gurigii hooyo may joogin waan warwaray shaqadii ka soo markii soo noqday hooyo aad u daalan ilaa weyn ba tagtay dhakhtar bay tagtay dhakhtarku wuxuu ku yiri markii la baarbaaray beerkaagu aad ba xaaladdiis u darantay intay dhabisiisay hagsiisay ku jirisay bartay cawday اوعى تنساني اوعى تنسى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المبطول مش شهيد اللوب انه النبي عليه السلام قفك وعلاش قول انت معدنت قول انت waa shahiid adiguna waxa tahay camalkayga kasbigayga baatay rabbanka si hagman subhanahu waxay ku tii hooya ooyin hadaan dhinto rasuulkii buu dhintay qof kasta uu dhiman doona waan ooy aad baan ooy waxaan ku hooyo cid ma lihi waxay ku tiri waxaad leedahay
لك ربنا اوعى تخسر إيمانك هدان أنا كاتبه إله بعد لا إيمانك أول مرة waxay ogeyd camalkayga baa tahay qul aqalu camala shaqadeedi way yaraatay xanuunkeedii baa batay wixii waxa yaraaday shaqadii baa yaraatay ana aad baan u murugooday kadibna waan shaqeeyey wixii ay bartay oo cunto karistii oo kalaan bartay waan sameeyey markaan sameeyey cuntooyii anigu waan iibiyey maxaa ka suuq baan yeelanay maasha allah tabaaraka allah jaamacadii wax isku barbar wuxuu hooy shaqada ka tagin shaqadii tacliintiisii iyo shaqadii isku barbarwaday wuu najaxay maasha allah hooyada wuxuu marnaba كلمة دين حلاشة عنتي بمدحي كدوامسي ما نروح نقول أكفر استبويلي اوعى تنسى بيتمكش عقتها اللي هو بمكان انتو انا دي دعيسي ما نروح نفر استبويلي عنتي أفوق القليني عنتي دي بلا ملحة بلا صبغة أين قلبي قراعة ما كان سكن لما سنة كلابات شامعادنا كنتشرو هبين مد رمضان تكمذا أيه وحا هو يدي ويلي متي وحان أقل قول كيبان وقل سهادي مخرب سألو توسيو هو يولي متي بان أركي habbaan kasii hadba hooyadii maydabo 19 jir anigoo ah baan hooyadii ku degay buu waan ooyey waxaan xusuustay hadalkii ilaahay xusuun tadakarta allah ilaahay baan xusuustay injidni yaa rab ilaahay ii soo gargaar ilaahay ii soo gurmo cid ma haysto cid lama joogto kaligay baan ahay maxaan qabta abaaki baa la garaacay abaaki waa jaarkaygii sinxiba ii sida cunto kulul waa xiliga afurkii leene cuntada qiiqa dhexdeeda bay aragtay inay wajigayga ilin ku taalo maalak ya axmed maxaa ku halay maqsinka ba farta ugu fiiqay ana ooya islaantii baa gashay qolkii baa gashay hooyadii baa aragtay odaygeedii caruurtii baa yimid dadkii dhan baa yimid hooyadii baa la meeday hooyadii baa la kafnay hooyadii baa lagu tukaday masaajidka ii kaxayn jirtay maalin kasta anoo yar masaajidkii baa lagu tukaday dad fara badan baa ku tukaday waan ooyey aad waan ooyey laakiin jiraanka marnaba igamay tegin inkastoo cilaaqadeedu xoog hayn bargii hore laakiin aad maalinaba igamay tegin markastaba afurka ay keeni jireen way wareegsan jireen bilaan caynka ahaa buu yidhi anoo seexanaynin hadalkii hooyadii baan xusuustaa ana camaluha almumtad anuu camalkeedii sii waarayay ee socday baan ahay waxaan ku dhaartay inaanan hooyaday malaha iga malaysay inaanan ka baxayn waan dadaalay buu yidhi maa caad axmed yaxtad cid hag siisa ma jirto mar dambe sidii hooyadii hagtay siin jirtay laakiin anaa hab siin doono oo dhuunta gashan doono caruuraha agoomaha iyo masaakiinta dadka u baahan shaqadii hooyadii baan halkii ka waday camalkaygana waan waday wayna jaxday mashruuc hooyadii baan u sameeyey oo cunto karistii keegageeya oo magaceeda ku sameeyey oo maxaan ku dhahdaa ismkii hooyadii ku qoray maanta buu yidhi waxaan qorayaa qisadaydaasi markaan jaamacadii kasoo qalinjabiyey sanado badan ka dambeysay anoo hooyadii xusuusteedii wada akhawaani akhawaat waxaan ka faa'iidaysanayna qisadani inaan caruurteena ku ababino jacaylka ilaahay iyo inay ilaahay subxaana watacaala inay aakhiro markuu waalidku dhinto inuu cidda u ducaynaysa quray inay tahay ubadkiisa inay ubadka aynu barbaarino inuu ilaahay xiriirka ilaahay jeclaysiino inay ilaahay mataqaana subxaana watacaala ku xidhno in loo adkaysta dhibaatooyinka mashaakilka adduunka dhacaya dhibaatooyinka way farbadan imtixaanka qofka mu'minka markasta waa la imtixaanaya ruuxa dumar imtixaankeeda waxay kaga gudubtay iimaankeeda ilaahay ku xidhnayd yaqiinkeediba inankeedan u gudbisay yaqiinkeediibay ku aflaxday yaqiinkeedibu ilaahay inankeedan u barakeeyey cidlada iyo kelida ku noolayd ilaahay inaan waalid saalix uga dhigay inanka qasada waxaan ka faa'iidaysanana in qofka ilaahay isku xidha inuu marraba hoogaynin marraba khasaaraynin adduunka inta la joogana inay temporary tahay wax kastoo adduunka ku dhacayaan inay tahay marxalad yar oo gaaban laakiin آخرة وارث والغوارية إن آخر كل شخص إن نقولنا إن إله أدذالنا ما أنت رمضان كوتهاي أو جمعة تهاي كو بس سنة أو دتكو ذحني بنيهين أو قرية لسكو ذحري أو ملا لسكو تجينين إن إله علاقة ولا صلية لنا إن عبادة إن بدنا إن ذكر إله الصلاة بنا إن إله سبحانه حبل الله المتين قبصنا إن وحنا ذلك كرنا خير إنه صمينا إنه سبحان الله تذكي إلهي تذكي رسولك إله تدين إن كد ذالنا أين إله سبحانه وتعالى كبرينا إن متقنا إنه هيبصنا الدون كقول ما هو تمبرري إن آخر إن تجسرنا هيبصنا أين رجينا إن شاء الله تعالى إلهي توفيقنا وفتيه النبي سبحانه وتعالى شفاعة لنا ورسيده أنت لما تإله ونحرسته أنت نور إلهي سبحانه وتعالى نور وناكسني إيمان صادق مسلمين إلهي أصيه دنبي جني دنبي والك الله دافو توفيقي تصاير جبت توصل إلهي وفتيه إلهي نقول الران نقض أخواني أخواتي وحرجينا إن قصة سين عتبستي والله مرقة بدن بقصوغن لكن عبر بدن بقصوغن إلهي نواكيل القرآن وقصص عليه وقصص القصص قصص كواحد كتشرته عبرة حكمة كتشرته إسك الشيكة استماهنا والشيكة حكمة كتشرته إن حكمة لك صبح قصص كان رشين أجار كان كالعصا وواجب ويان إلهي وحنبريا إنه نقوى ضرار نقضه إلهي نوض الدم بدافه إلهي طريقة مستقيم كان وضم مريو انت مسلمين تحنو صاص الى عاف ما وصيو انت الاختراض طال الى عاف ما وصيو انت نقبقتين انت مسلمين تقبقتين وضع عافيو انت لمطين الهي وضن حرس والدي اهليه عيد قصه مسلمين الهي سبحانه وتعالى
jidka mustaqbalkana wada mariyo wixii khaldan waa nafteeda shaydaan wixii saxil ila tawfiiqisa astaghfiruka allahumma astaghfiruka wa atuubu ilayk fadlan isla sheer gareeya subscribe-na iyo sameeya wixii cajiba qisaska insha Allah soo gaar doonto xikamka fara badan leh ilaahay subhanahu wa ta'ala ku dariiqas la hagaajiyo ilaahay naga dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh